waxaa magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabeelle lagu qabtay munaasabada 1 Luulyo oo ku beegan goortii ay xornimadeeda gumeystihii Talyaaniga ka qaadatay koonfurta Soomaaliya isla markaana ay midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta Soomaaliya. waxaana munaasabada ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Hirshabeelle, xildhibaano, wasiiro, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maamulka degmada Jowhar, bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana goobta ay munaasabadu ka dhaceysay lagu soo bandhigay heeso wadani ah. ugu horeyn gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Barri iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha siyaasadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa goobta ka hadlay. lixda guurida waxaan leenahay waa haween ugu weyn ee haweenada kale noogu gudisan. waxaan leenahay aqbalyo. waxaan rabaa marka hore inaan umaad celiyo ilaahay subxaana wa tacaala. marka xigta waxaan umaad celinaa shacabka magaalada Jowhar afarteeda xaafadood. waxaan rabaa inaan hortiina ka caddeeyo hadduu ilaahay idhaahdo sida aad ugu qayb qaadateen labada munaasabadood ee maxaa duuraato 26 Juun iyo 1 Luulyo. waxaan leeyahay aqbalyo waa idinka mahad celinaa insha Allah. waxaa ilaahay mahadiya inaan maalmahan oo dhan aan ku guda jirnay toddobaadkii xorriyadda. waxaan ka soo bilownay 26 Juun, waxaan ku xijinay 27 caawa oo ay tahay 1 Luulyo. waxaan rajaynaynaa in maalintii noogu dambeysay ay tahay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guddigii qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo maalmahaas oo dhan ka shaqaynayay sidii u qabsoomi lahayd xafladan qiimaha badan leh. xaqiiqdii waad dareemi kartaan 1 Luulyo waxay qiimo ay ku fadhiso. 1 Luulyo waxay ku fadhisaa qiimo aan la soo koobi karaynin. waxay ahayd maalintii xornimada ay qaateen gobolada koonfureed iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur. calankan ay u jeedaan buluuga xiddigta dhaxda kaga taal iskaga imaan si dheedheela wuxuu ku yimid dhiig, waxaa ku baxay dhaqaalo, rag ayaa ilaa hadda god ugu jiro. intaas iyadoo ay dhacday waxaa la rabaa marka in haddana si dheedheel ay ku dhammaato hawshaas. annagu waxaan rabnaa dhallinyaradii ka qayb qaadatay 13 ahaa ee naftoodii ku waayay inaad la mid noqotaan amba annagana aan la mid noqonno ee aan ku noqonno dad beej ku lahaada amba taariikhda Soomaaliya qayb ka noqda. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Marwe Canab Ciise ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeysay munaasabada 1 Luulyo 60 sano guuradii ka soo wareegatay tan iyo markii ay gobolada koonfureed ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga iyo Israaciil labada gobol. intaasi waa maalintii gobolada Soomaaliya ay israaceen waqooyi iyo koonfur midnimadii ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay way injirsatay xornimadu way injirsatay tii waarta Allah nooga dhigo qarannimada Soomaaliyana midii ilaahay midnimada uu ku waariyo Allah nooga dhigo. kadib ciidamada militariga Soomaaliya ayaa markii ay saacada gaartay 12 habeenimo waxa ay saareen calanka Soomaaliya. amniga magaalada Jowhar ayaa xalay aad loo adkeeyay iyadoona wadooyinka mara magaalada Jowhar la dhigay ciidamo baliis ah oo sugayay amniga si bulshada ugu damaashadaan si farxad leh. munaasabada ayaa ku soo gabagabowday jawi farxadeed. Mahad Axmed Cali Soomaad Kuwaara Goobjoog TV magaalada Jowhar caasimada maamulka Hirshabeelle.